qaybteeda muuqaalada ee telefishinka ee qaybta online-ka ee wakaalada Brand News daawadayaal agaasimaha qaybta maaliyadda ama financial-ga ee hay'adda Eriska Cabdikariin Xilif oo komishanka doorashooyinku ay maalmihin toddobaadkan ay ku jireen u dambeeyay ku soo eedeeyay inuu ku kacay tallaabooyin sharci jabin ah oo baalmarsan dowladnimada iyo shuruucda dalka u taala Somaliland isla markaana Xilif ayaa murashaxa xisbiga Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay xil isagoo xilka haya dowladda balse komishanka ayaa waraaq soo qoray hay'adda uu ka yahay gudoomiyaha Sharbakayare ee hay'adda shaqaalaha in ay tallaabo ka qaado Cabdikariin Xilif maadaama uu ku kacay sharci jabin balse Xilif oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa ku gacan sayray waraaqda ka soo baxday komishanka doorashooyinka Somaliland isagoo oo dushana ka saaray eedo balse tallaabada Cabdikariin Xilif waxay muujinaysaa maadaama ay madaxweynaha ay ka soo wada jeedaan beel inuu ay muujinayso hadalada ka soo yeedhay ee isburinaya Cabdikariin Xilif in uu awood ka haysto xagga madaxweyne Silaaye oo uu yahay adeerkii taasoo oo luminaysa dowladnimada iyo systemka iyo kala dambeynta shacabka reer Somaliland ay ku soo caanamaaleen intii ay jirtay jamhuuriyadda la baxday Somaliland isla markaana Cabdikariin Xilif ayaa tallaabadiisan iyo dhawaaqan ka soo yeeray waxa ay shacabka reer Somaliland u cadeynaysaa in madaxweyne Silaaye uu wax gacana iyo wax tala aan uu ku hayn dalkii iyo dowladnimadii ay dooteen shacabka reer Somaliland isla markaana waxa ay tallaabadani daaha ka sii faydaysaa in digreetadii madaxweyne Silaaye soo saaray ee uu ku amrayay in mas'uuliyiinta xukuumaddiisa xilka ka haya iyo shaqaalaha dowladda ay ku dhaxmilmin xisbiyada ku tartamaya doorashada fooda inagu soo haysa ee waqtiga yar ka haray isla markaana aanay ka dhex muuqan oo wax alla aanay saddex murashax ee Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga wadani ee Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbiga Ucid Faysal على ورابه الله قد حركة كريم تسوون بالحوال سلاي دكتاتي سهرة وصو صاري وكل شيء إن قفكي لقوا أركا مسؤول لقى قاضي الطلابة حصي شيء Cabdikariin Xilif أيام بالحوال سلاي دكتاتي ساك كتلقي وحمة كم تشيران يحل بعض النساء إسلام مركانا Cabdikariin Xilif أيام موجنا يطلابة هذا الكسر يريد واقع وكجوابه جوابه إذا كوميشن كويسو تشيدين إنه كوكاي إن دكريتا أسباب ومدحونا سيلان سوقرين أي تهاي دكريتا وسوقرين وسير كمدحتويدا محمود حاشي مهند إسلام مركانا وسير كمحمود حاشي حلف أيا سوين سوحيا تاسو أو حلف وأوضب بدن إيه صاحب لو لي هي مرشح حزب كلمية يكو حقين كيسا كأهد دنياها كل حاجة مصبيح محمد كاهن يسقو عمر كستبنا هبين كستب لحتاج جورجا مصبيح أو عن كذا ما أنت بدن حنف جورجاس مرشح حزب كل مية بس طلع بدن يحدي أي سيزن أو أسيس أو مد أول سيلايو
aanu ilaa iyo hadda wax go-aana iyo wax tallaaba aanu ka soo saarin arrintaa sharci jebinta ee xinif waxa ay khatar tahay in madaxweynahaba Silaanyo aanu talada dalka ku hayn taas oo halis gelin karta khilaaf ka dhasha doorashada oo la isku qabsado isla markaana madaxweyne Silaanyo oo durba ay soo ifbaxday in go-aankiisi daaqada laga tuuray oo aanay waxba kaba jiraan oo cid hoggaansamisa aanay jirin in ay adag tahay in uu qabto doorasho xalaala balse xinif oo hadaladiisu iskhilaafsan yihiin iyo waxyaabaha uu kaga jawaabayo waxa ay daraa in uu ku faano talaabadan oo hore loogu soo eeday taasina waxa ay muujinaysaa in uu awood sagu sare ka haysto laakiinse haddii uu xinif la qaban waayo sharcigii dalku iyo wixii ay shacabka reer Somaliland dhigteen maxay tahay dadka kalena ma qabanaya ee aan ahayn madaxweyne Silaanyo beeshiisa bal daawada waxyaabaha uu ku hadlayo xinifkii madaxweyne Silaanyo adeerkii u maamaday laba in shaqaalaha dawladda xeerkana aan u ogolayn inuu noqdo xubin firfircoon ama hogaamiye xisbi hogaamiye ka noqdo xisbi haddaba shaqaalaha dawladda in la sheegaya waa kii commission kayagan iyo commission kale toona intaas soo qodob midna laguma dhaqo sidaa daraaddeed waxaan halkan ka cadaynayaa xeerkaa shaqaalaha dawladdu in aanu ahayn xeer ee la leeyahay shaqaalaha dawladdu waa inay hogaamiye xisbi ama xubin firfircoon ka noqon ee waxaasoo dhan u asalka ah inaanu ahayn xeer lagu dhaqayo sida halkaan idinka caddeeyey isweydiiyo oo dad badanoo xataa aan mutacalimiin u fahmayey u haystayban ayaa waxa haday jeer yidhahdaan miyaanu qofkan mushahar qaadan dee mushaharka qof kasta oo dawladda ka tirsan uu qaataa aniga komishinadayada wixii la mida wasiirada kulligee waxaan mushahar ka qaadanaa isku subhead la yidhaahdo shaqaalaha aan joogtada ahayn ay soo qoreen guddida anshaxo oo 2 xubnood ay ku saxiixan yihiin guddoomiyaha iyo xoghayaha Sucaad Ibrahim Cabdi iyo Cabdulqaadir Ismaan Xirsi oo nuqlan ka hayo ayaan doonaya horta lafteeda warqadda lafteeda iyo nidaamkeeda inaan wax ka ilaahdo kow warqaddu guddida anshaxa la yidhahdaa weligeed waa jiri jirtay guddi anshax xisbiyadu way lahayn doorasho kasta oo timaado waa la samayn jiray waxaa sameeya komishinka doorashooyinka qaranka waxay shaqaale u yihiin komishinka doorashooyinka qaranka waxay accountability u yihiin komishinka doorashooyinka qaranka marka hore iyagu toos ulama xidhiidhi karaan oo qoraal uguma gudbin karaan hay-adaha ay khusayso walaa komishinada walaa dawladda wixii u muuqda qodobka 3aad warqaddu shaambad ma leh cid soo shaambadaysa ma jirto brotocolkeeda waxba ka dhiman haddaan warqaddu shaambad lahayn xafiis aanay lahayn qodobka 3aad afraad yaan ku naqdiyay waxa weeye waxay u qoreen guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda gebagabadana waxay yidhaahdeen guddi ahaan waxaanu soo jeedinaa in aad guddoomiye ahaan aad ka qaado tallaabo anshax marineed oo ku habboon aniga waxaa ka khaldantay 2 qof oo madaxweyne wada magacaabay inaanay is anshax marin halkaa way la lumeen qodobka kale waxa weeye dhacdadan oo kale hore ma u dhacday hore u dhacday 2012 bay dhacday isla guddidii anshaxa ee waqtiga jirtay ee cadaad baan filayn inuu guddoomiye u ahaa ama xoghaye ma garanayo cadaad baa kamid ah aad u hadlay isla aniga ayuu iga hadlayay wanaagsan aan u isticmaali lahaa qofka marka waa anshax marin anaa waa edab darooday weeye واجبك كجدو هذا حتى حقولي واجبك كجدو وحقولي مري لكن أنشح مري وحلتي إلى أني يجونا إني يلهدان أنا ونكسرين أنا قاعد كلتوني إني كل هذا madaxweyne Silaanyo ayaa intii uu talada dalka hayay waxa ku sultan oo marnaba qalbiga shacabka reer Soomaaliland ka baxeen
go-aan jileeca iyo wax kasta oo soo saara oo waxba kama jiraan ah. xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ayaa intii uu talada dalka hayay waxa uu boqolaal digreeto oo kala duwan oo soo saaray fashilmay oo aan hirgelin oo noqday halbacad lagu lisay. hase yeeshee go'aamada madhalayska ee madaxweyne Siilaanyo waxa ay khatar iyo halis gelinaysaa in uu dhinto ama uu baaba'aan kala dambeyntii, taasina ay cadaan u tahay xinif iyo dhaqamadiisa xunxun ee uu ka kacayo. hase yeeshee xinif waxa weeye nin xidid la ah beesha murashaxa xisbiga kulmiye, halkaasna Muuse Biixi uu kaga soo dhaweysanayo. hase yeeshee xilka Muuse Biixi u magacaabay xinif ma noqon doonaa mid tallaabo laga qaado, mise wuxuu noqon doonaa mid muujinaya awoodda xinif? balse Maxamuud Xaashi ayaa isaguna ku jira xaalad halis ah, taasoo u muuqata waqti xaadirkan in hog ku dhacay mustaqbalkiisii siyaasadeed iyo shacabka reer Somaliland oo maanta ku lahayn wax taageera ah. hase yeeshee xinif waa shakhsiyaadka inta badan dadku kaga yaacaan ama lagu nacay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda madaxweyne Siilaanyo. xinif oo isagu hay'ad iska xurtaystay, xinif oo isagu ah mid inta badan ku sifoobay habdhaqanada foosha xun ee lafjabka ku ah iyo halista qarankan Somaliland. laakiinse tani waxa ay fadeexad ku tahay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo iyo go'aamadiisii. waa madaxweynihii go'aamadiisu aanay geedka gaadhin. xinif waxa uu cadaynayaa in uu madaxweyne Siilaanyo adeeru yahay, waa sida hadalkiisa ka muuqatee. tani ma aha in uu isagu bareero oo hadalladan oo kale uu ku hadlo haddii uu madaxweyne dalka ka taliyo. tanoo kale may dhacdeen, ee waxau noqon lahaa mid ka cabsada madaxweynaha oo isagu tallaabo degdeg ah markiiba kaga jawaabin eedaha komishanka u soo jeediyeen iyo tallaabada lagu amray gudoomiyaha hay'adda shaqada in uu ka qaado tallaabo sharciga waafaqsan. taasina waa mid muujinaysa in sharcigii dalku wax burburay.